xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay siyaasiyiin iyo sidoo kale taageerayaal hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo ku soo biiray xisbiga waxqabadka iyo horumarka ee kulmiye. munaasabadani oo lagu soo dhaweynayay xogahayihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale taageerayaal uu horkacayo ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay Hotel City Plaza ee magaalada Burco. madashani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer gobol iyo heer qaran, maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco, cuqaal, salaadiin, haween iyo taageerayaal mug iyo miisaan leh oo lulaya calanka xisbiga kulmiye. madashan oo ahayd mid ilyartu isqabatay isla markaasina ay ka muuqatay fooladayn iyo dhowlato siyaasadeed oo xamaasadaysna ayaa ku bilaamatay jawi degan. ugu horeyntii waxaa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer mudane Xasan Cabdilaahi Axmed Xasan Mataan oo ugu horeyn taageerayaashan ku soo biiray xisbiga kulmiye ku bogaadiyay go'aanka geesinimada leh ee ay ka qaateen kadib markii ay mustaqbalkoodii siyaasadeed ka arki waayeen xisbiga wadani. waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa taageerayaal ka soo diga rogtay xisbiga wadani oo uu hogaaminayo Cabdisalaan oo ahaa xogayihii gobolka Togdheer xisbiga wadani iyo xubnaha uu hogaaminayo ay ka mid yihiin xogayihii garabka dhalinyarada isaguna gobolka xisbiga wadani oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan guddiga fulinta ee gobolka ee xisbiga wadani iyo taageerayaal tiro badan. taageerayaasha tirada badan leh ee uu hogaaminayo xogayaha iyo xubnaha guddiga fulinta ee gobolka baanu ku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye. waxaanu leenahay soo dhawaadaanu leenahay. xisbiga kulmiye waa xisbi la wada leeyahay, waa xisbi dadka ka dhaxeeya, waa xisbi qofka hore uu joogay iyo ka iminka ku soo biiray ay u yihiin oo ay u gudboon yihiin taladiisa iyo shaqadiisa iyo hawshiisa iyo waxqabadkiisa wada noolaashahaysiya ka wada qaybgalkiisaba loo gudboon yahaan idinku soo dhaweynaynaa. barasaabkii hore ee gobolka Togdheer mudane Yaasiin Maxamuud Cabdi, cuqaal iyo sidoo kale salaadiin iyo xubno ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa iyaguna farta ku fiiqay in xisbigan ay u siman yihiin taageerayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku soo biiray xisbiga. waxaanay cadeeyeen inay mudan tahay in mujaahidiinta dalkan u soo halgamay loo dhiibo talada dalka. kalgacayl iyo wanaag iyo harumar baanu idin rajaynaynaa, idinku soo dhaweynaynaa. jamco furan iyo laab furan baa ku soo dhaweynaysaan laga bilaabo caawa kulmiyaatiin xisbiga kulmiye taasoo maskaxdiisii markii ay tuujiyeen ee ay eegeen ay la noqotay xisbiga quraha la isku aamini karaa inuu yahay. waxaa lay dabkii baxaya dab lagu qabsaa mar labaad baan leeyahay soo dhawaada gobolada oo dhanna taa iyo mid ka daran baa dhici doonta. waxaan arkayay maanta reer wadani dad ka mid ah oo website-da TV-da ka qaylinayaan arkayay oo cabaadayaan arkayay hablihii ugu qaalisanaa reer wadani oo calaacalaya oo qaylinayaan arkayay. waa farxay ilaahay iga calaacalsii baan leeyahay. waxaanu idin ballan qaadaynaa inaad noqotaan hogaamiyayaasha iyo hormuudka xisbiga. aad baan u soo dhaweynaynaa garabkada ku soo biiray xisbigan kulmiye. dalkaniyo ma hayna dhaqaali baan u haynaa, xoog iyo xooli baan u haynaa, waa isugu daraynaa. waxaanu leenahay aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa. waxaan aad u soo dhawaynayaa Cabdisalaan iyo tiinka uu hogaaminayo oo runtii arkay baaxadda iyo quruxda kulmiye waqal hore iyo waxaa tahay heegada indhaha lagu wada hayee dhibicda lagu hoorta iyo hilaacan iftiinka dheer onkadkan hiigaamaya waxay u horseed yihiin guushaan wada hibarayniyo kulmiyo xukunkii hantay. dhanka kale qaar ka mid ah taageerayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo diga rogtay xisbiga wadani oo uu horkacayo xogahayihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer mudane Cabdisalaan ayaa tilmaamay sida ay ugu qanacsan yihiin inay ku soo biiraan xisbiga kulmiye. runtii waa soo tagnay buuggii kulmiye ayaa noo cuntaday kii baanu qaadanay halkanna waanu ku nimi. caawa haddaba waxaan u sheegayaa taageerayaashayda badi halkan ka soo qayb galay, madaxda qaranka, madaxda heer gobol ee halkan isugu timi, dadweynaha sharafta leh. waxaan u sheegayaa aniga iyo taageerayaashaydii
iyo xubnihii heer gobol ee aanu ka soo digaroganay xisbiga waddani inaanu u soo digaroganay oo aanu muruq iyo maskax iyo maalba aanu la barbar taaganahay oo aanu la mid nahay xisbiga kulmiye. gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo gunaanaday maayirka degmada Burco iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer iyagoo si isku mid ah u soo dhaweeyay siyaasiyiinta iyo taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh ee cududooda taageero ku biiriyay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. xubnaha aad u qiimaha badan ee madaxda ah ee ka soo digarogtay xisbiga waddani kuna soo biiray xisbiga kulmiye oo ugu abaalgudnaaye hogaaminta dalka aynu dhiibno reer Burco diyaar ma u yihiin annaguna waxaanu diyaar u nahay cid kastoo ku soo biiraysa xisbiga inaanu gacmo furan laa furan jacayl iyo mid walba aynu ku soo biiray rag iyo dumarba. sharaf bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladan soo dhaweyna waan maadaama ay madaxweyne u sarreeyay gobolka cabdisalaan iyo bahdiisa iyo hablayaasha ka hadlayba waxaan leeyahay soo dhawaada waa xisbi aan la kala lahayn. cabdisalaan iyo soo dhaweynaa waftigan ciidankan caawa halkan inaynu tumayno xisbiga waddani ka yiri xisbigeena kulmiye ku soo biiray waa soo dhaweynaa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Bulsha TV magaalada Burco.